WhatsApp-ka ayaa hawada ka maqnaa muddo saacad barkeeda. haddaba daawade ma la socotaa sirta ka dambaysa WhatsApp-ka? tani waa qisadii Brian Acton. ninkan waxaa shaqo u diiday shirkadaha Facebook iyo Twitter, balse ugu dambeyn isaga ayaaba sameeyay application-ka lagu wada xiriiro ee WhatsApp. sidoo kale Brian wuxuu ka dhaqaaqay ambase uu iskaga tegay lacag dhan 850 milyan. haddaba maxay tahay sababtii ku kaliftay Brian inuu iskaga dhaqaaqo cadadkaas dhan ee lacageed isagoo welibana og inuu khasaarayo? daawade si aad wax badan uga ogaato nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. sidoo kale ha ilaawin inaad like saarto videogan maadaama waqti badan iga galay. mahadsanid waanigoo ah Nadra Saciid. WhatsApp-ka ayaa hawada ka maqnaa muddo saacad barkeeda kadib markii ay ku timi cilad farsamo. nasiib wanaag dib ayuu u soo laabtay markii la xaliyay muddada yar khalkhalka uu ka yimid. waa markii labaad ee lagu arko ciladaas WhatsApp-ka iyadoo sanadkii hore 2021 gebi ahaanba shirkadaha Meta ee Facebook, WhatsApp, Instagram ayaa hawada ka wada baxay saacado. waqtigaasna waxaa soo wajahay khasaaro aad iyo aad u badan iyadoo hoos u dhac badan kaga yimid dhanka dhaqaalaha. haddaba daawade ma la socotaa sirta ka dambaysa WhatsApp-ka? tani waa qisadii Brian Acton. ninkan waxaa shaqo u diiday shirkadaha Facebook iyo Twitter, balse ugu dambeyn isaga ayaaba sameeyay application-ka lagu wada xiriiro ee WhatsApp. Brian bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay inay fursad u ahayd shaqada loo diiday, taasoo sabab u noqotay guusha uu gaaray maanta. sidoo kale Brian wuxuu ka dhaqaaqay ambase uu iskaga tegay lacag dhan 850 milyan. haddaba maxay tahay sababtii ku kaliftay Brian inuu iskaga dhaqaaqo cadadkaas dhan ee lacageed isagoo welibana og inuu khasaarayo? WhatsApp-ku maanta wuxuu ka mid yahay application-ada loogu isticmaalka badan yahay. dhammaantiinba waxaynu isticmaalnaa WhatsApp-ka inagoo welibana qaabab kala duwan u adeegsanaa. dad badani ganacsigooda ayay u isticmaalaan xagga qaarka kalena faamiliyadooda amba asxaabtooda fariimo kala duwan iskula wadaagaan. wuxuu inoogu jiraa kaalin aad u muhiima. haddaba qisada ka dambaysa WhatsApp-ka ila ogow maanta. labadii injineere abuuray WhatsApp-ka, Brian Acton iyo Chan. ninkan oo lagu magacaabo Brian wuxuu dhashay 17 February 1972. dhalashadiisu waa American, wuxuuna kusoo barbaaray Florida isagoo halkaas kusoo dhameeyay dugsigiisii sare. qoyskiisu waxay ahaayeen qaar hela nolol maalmeedkooda oo kaliyaata. dabaqada dhexe ayay iskaga noolaayeen. Brian wuxuu ku biiray jaamacadda Pennsylvania 1991 kadib markii uu helay scholarship. si kastoo ahaataba Brian wuxuu ka qalin jabiyay 1994 jaamacadda Stanford University. markii uu waxbarashadiisa dhamaystay Brian wuxuu noqday xirfadle ku takhasusay cilmiga computer science-ka. intaas kadib wuxuu shaqo ka helay shirkadda Apple isagoo u qaabilsanaa tijaabinta wax soo saarka Apple. sidoo kalena wuxuu ka soo shaqeeyay sistamyada barnaamijka Adobe loo yaqaano 1996. Brian wuxuu ka mid noqday 44 qof ay shaqaaleysiisay shirkadda Yahoo isagoo welibana u soo shaqeynayay 11 sano. laakiin Brian 2007 wuxuu ka tegay Yahoo si uu u sahmiyo fursad cusub shaqo tan u dhaanta, isagoo welibana wata khibradihii uu ka dhaxlay shirkadihii hore u soo shaqeeyay iyo shaqooyinku soo qabtayba. muddo kadib 2009 wuxuu codsi shaqo u dirsaday shirkadda Facebook, laakiin way soo diideen. marnaba Brian muu ahayn mid niyad jabaya amba sabarta ku haraya. mar kale ayuu shaqo dalbaday isagoo shirkadda Twitter codsi u dirsaday. nasiib xumo markan shirkaddii Twitter iyaguna way soo diideen. tanna waxay sababtay inaanu shaqo dambe ka helin shirkad kastoo magac leh. laakiin Brian marnaba ismuu dhiibin, waxaanu joojiyay inuu shaqo dambe raadiyo. taas bedelkeedana wuxuu ku fikiray inuu sameeyo isagu shirkadu khaas u leeyahay. Brian waxaa jiray inay saaxiib ahaayeen oo lagu magacaabo Chan, kuwaas oo kasoo wada shaqeyn jiray shirkadda Yahoo. Chan iyo Brian waxay iska kaashadeen inay aasaasaan shirkadda WhatsApp. ugu dambayna way ku guuleysteen. WhatsApp waqtigaas muu lahayn qayb chatting kaliya, bilowgii waxay u sameeyeen status wax la soo dhigo. muddo kadib waxay kusoo kordhiyeen adeeg bilaash oo wada sheekaysiya. WhatsApp wuxuu noqday xilligaas mid qarxay oo welibana dad badani barteen. wuxuu ahaa mid si bilaash lagu isticmaalo welibana xayisiis iyo waxba toona aanu qofku arkaynin. haddaba Brian iyo saaxiibkii Chan sidee bay dakhli uga samayn jireen WhatsApp-ka? runtii waxay ku noqotay caqabad sababtoo ah may rabin abkaas cusub inay dadka ku qasbaan sidii ay wax uga dhex iibsan lahaayeen sida Alibaba iyo Amazon. sidoo kalena waabay kaba soo horjeedeen inay xayisiin ku dhex sameeyaan WhatsApp-ka si ayna bulshadu u dhibsanin marka ay asxaabtooda iyo faamiliyadooda la sheekaysanayaan. si kastoo ahaataba haddana waxay rabeen mashruucoodani inuu noqdo mid u hirgala oo dad badani kusoo xidhmaan. Brian iyo saaxiibkii Chan xagga
isaga jeebka ayaa ciilay waqtigaas ma haysan haba yaraatee wax dhaqaalo ku filan iyadoo ay saa tahay waxa ku soo xirmay dad aad u tiro badan marba marka ka dambaysa WhatsApp-ka wuxuu noqonayay mid bulsho badan oo daafaha caalamka joogta uu gaadho welibana si xawli u faafo taasina caqabad ay ku noqotay waayo waxay u baahdeen shaqaale badan iyo welibana dhaqaale ku horumariyaan WhatsApp-ka sidaa darteed waxay degeen qorshe ah qof kastoo abkan la soo degiyaa inuu bixiyo $1 halka ay dalalka qaarna sanadka hore ay bilaash uga dhigeen marka uu qofku sanadka koowaad bilaash ku isticmaalo sanadka labaad kuma adkeynaynin hadaanu bixin oo bilaash unbuu ku sii isticmaali jiray marnaba Brian iyo Jan kuma fikirin in dad kale ay maalgeliyaan waayo waxay ka cabsadeen cadaadis badan in la saaro markastoo bataan dadka ku soo biiraya abkan waxay la kulmayeen dad badan oo codsanaya inay maalgashadaan muddo kadib shirkado badan ayaa u soo bandhigay heshiisyo iyo inay maalgelin ku sameynayaan laakiin way diideen waxayna dhaheen muddo intee la eg baynu ku tiirsanaan kareynaa maalgashi waa inay shirkadu soo saartaa dakhli iyo dhaqaalo badan hal mar ayaa waxa laga warhelay 2014 shirkada Facebook oo ku iibsatay WhatsApp-ka lacag dhan $19 bilyan waxay noqotay abid lacagtii ugu badnayd ee shirkad lagu kala iibsado sababta ka dambeysana waxay ahayd Mark Zuckerberg marnaba muu rabin inuu arko shabakad kula tartami karta xagga isgaarsiinta Facebook sidoo kalena Instagram ayuu ku soo iibsaday lacag dhan $1 bilyan Mark Zuckerberg maanta waa mulkiilaha shirkadaha Meta ee Facebook, WhatsApp iyo Instagram. Brian iyo welibana saaxiibkii Jan waxay ka heleen $19 bilyan markii uu maalgashaday Facebook, WhatsApp-ka. Welibana Brian wuxuu ka sii mid ahaa maalgashadayaasha isagoo percentage ku sii lahaa. Si kastoo ahaataba Brian wuxuu ogaaday ambase uu ka war helay in isbedel aad u weyn lagu sameeyay WhatsApp-ka. xogta isticmaalayaasha WhatsApp-kuna ay noqotay mid laga ganacsanayo. Wuxuu ogaaday lacagta laga sameeyo WhatsApp-ka inay tahay xogaha dadka isticmaala. sidaas darteed Brian ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo shaaciyay isagoo sameeyay hashtag uu leeyahay delete Facebook. Wuxuu yiri waxa la joogaa waqtigii aad iska masixi lahayd Facebook-ga. Kadib wuxuu go'aansaday inuu isaga tago isagoo heshiiskii ka dhaxeeyayna uu ka tanaasulo. Brian waqtigaas wuxuu khasaaray lacag dhan $850 milyan. lacagta intaas la eg ayuu ka dhaqaaqay kadibna wuxuu milkiile ka noqday shirkadda Signal oo ah mid u shaqeysa sida WhatsApp-ka oo kale. Brian maanta hantidiisa waxa lagu qiyaasaa inay gaadho $2.4 bilyan. ninkan haddaba qisadiisu waxayna baraysaa inaanad marnaba niyad jabin sidoo kalena aad samayso ficil si aad uga dhabayso hamiga aad ka leedahay nolosha. daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. like saar videogan si ay anigana dhiirigelin iigu noqoto. sidoo kalena xagga commentiga nagula wadaag sheekada amba qisada Brian wixii aad ka faa'iiday. mahadsanid.